iyo soo noqod wanaagsan marka xigta ajendaha kan la soo diyaariyay waa mid aad u qurux badan waxaan markaa fikradda ka geysanayaa waa sida tan marka koowaad markay warbixinta shirguddoonka iyo guddiyada kale ay inoo dhammaato oo ah intaa ciwaanka sare ku qoran markay taasu inoo dhammaato xagga xeerarkana loo gudbayo waxaan soo jeedinayaa 5 xeer oo goloweynaha hor yaalla 5 xeer ee goloweynaha hor yaalla ilaa wixii kale guddiyaal bay ku maqan yihiin in 5taas oo xildhibaan ogsiyan marka ka dhawaajiya ku taageersanahay in goloweynaha wixii hor yaalla aynu ka dhigno mudnaanta koowaad intaynu ka gaarsiin karno inta marka laga gudbo xeerarka kale waxaan ka soo xushay 6 ka mid ah 5taa marka 6 baan ka soo xushay anigu 6daasi waxay kala yihiin ka koowaad xeerka ka hortagga iyo xakamaynta ka ganacsiga tahriibka dadka ayaan 6 ka dhigay 7 waxaan ka dhigayaa xeerka miisaaniyadda qaranka waa lagama 7 xeerka miisaaniyadda qaranka 8 waxaan ka dhigay aan jeclayno ka dhigno wax ka beddelka iyo kaabista xeer nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadeed xeer lambar 14 sekondina wuu helay maasha allah xeerka maxay haytay 9aad waxaan ka dhigay xeerka hay-adda dekeda ama free zone berbera free zone ama suuqa xorta ah ayaa 9 ka dhigay 10 xeerka wax ka beddelka shaqaalaha rayidka ah kaabista iyo wax ka beddelka shaqaalaha rayidka ah 10 oo ugu dambeeya mudane guddoomiye mudanayaal waxaan ka dhigay xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta 5taa 11kaa xeer ayaanu soo xushay wixii aynu ka gaadhsiin karno dabcan waxaynu garanaynaa markii mas-uul qaran yimaado la ansixinaayo markii hawlo kale soo darsaan intaa aynu hormarinayno waa wax caado ah oo goluhu garanayo laakiin markay noqoto xeerarka ina hor yaalla ajendaha kan mudane guddoomiye mudanayaal intaasaan ku soo ururinaya wabilaahi towfiiq waxaan ku soo dhawaanayaa xildhibaan maxamuud ismaaciil bedel